xisbiga mucaaradka wadani ayaa agab buugaaga ku wareejiyay naadiga akhriska iyo qoraalka ee anfac ee ka dhisan gobolka Sanaag ee magaaladiisa Ceergabo waxaana kala wareegay gudoomiyaha naadiga anfac una mahadnaqay xisbiga mucaaradka wadani sidoo kalena ugu baaqay inay xisbiyada kale ku daydaan xisbiga mucaaradka wadani oo alaaba uu sheegay inuu dhalinyarada dhiiri geliyo waxaanu yiri sidan anagoo Sanaaga kolka labaad naadiga akhriska iyo qoraalka ee anfac wuxuu ka dhisan yahay gobolka Sanaag wuxuuna u dhisan yahay dhiirigelinta kutubta iyo mataqaanaa wax soo saarka dadkii aynu mataqaanaa wixii aynu lahayn in la diiwaan geliyo la korgaayo la qoro inta kadib xisbigu si wanaagsan buu noo soo dhaweeyay oo kuma aanan tala gelin hawsha intan leeg adina guddoonsiiseen hadiyad la isku doonsiyo buugaagta halkaan oo gobolka Togdheer ah inayna saan oo kale buugu guddoonsiiyeen qiimo badan naadi ahaan anfac waan idinka mahadcelinaynaa kol koowaad iyo kol labaadba naadi ahaanna Somaliland oo dhan waan idinka mahadcelinaynaa xisbiyada kalena waxaan u rajaynaynaa inay sidan oo kale ugu daydaan oo buugta iyo tacabka ay dadku soo saaraan dadka booba iyo ay kamid yihiin Cabdiraxmaan Koobaqa iyo Maxamed Baasha Xaaji Xasan iyo dadkaas buugtooda in goboladii la sii gaarsiiyo oo loo iibiyo oo lagu dhiirigeliyo dadkana inay wax akhristaan taasaan idinka mahadcelinaynaa Cabdirashiid Jeeni iyo Maxamed iyo nimanka kale ee xisbigeena soo dhaweeyayba aad baa u mahadsantiin 100% buugaagtaasna waan idinka guddoonay thank you so much waxaana ku wareejiyay xogayaha warfaafinta Cabdirashiid Jeeni oo isaguna halkaasi ka hadlaya ayaa sidan yiri guddoonsiino buugaag kala duwan oo qaybaha kala duwan ee qoraalka isugu jirta inaan guddoonsiino naadiga anfac ka dhisan magaalada Ceergabo ee gobolka Sanaag halka waxaan la joogtay mas'uuliyiintii baa nala jooga marka aad baan ugu faraxsanahay inaan guddoonsiino run ahaantii waxayna qayb ka tahay dhiirigelinta dhalinyarada ee dhinacyada kala duwan ee xisbigu uu mar walba ku dhiirigeliyo arrimaha haday tahay arrimaha qoraalka iyo akhriska iyo waxbarashada oo halka ay asaaska dhalinyaradu taalo koow iyo haday tahay dhanka shaqo abuurka iyo sportiga iyo sida dugsoontihiin xisbigu wuxuu leeyahay waxa kala duwan oo dhalinyarada Somaliland guud ahaan ay u ahaan lahayd dhalinyaro soo baxda oo noqota kuwa la tartama facooda adduunyada marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar walba la shaqeyno ma aha markii horeysay sidan oo kale loo guddoonsiiyo dhalinyarada loo guddoonsiiyo buugaag iyo kutub kala duwan inta badan gobolada Somaliland uu yar yahay oo gobol ama degmo ama magaalo aan hadeer aanu ka dhisnayn naadi akhris dadku waxay aad ugu baraarugeen akhriska iyo wax qoraalka aad baan u dhiirigelinaynaa waanuna ka qayb qaadanaa mar walba ma jiro qof dhalinyaro ah ama waayeel ah oo Somaliland intuu wax qoray aan xisbiga wadani qayb ka qaadan daabacada buugaagta iibsashada wax kalena ma ahay waxa weeye dhiirigelinta in qoraalka iyo akhrisku uu kor u kaco sidoo kale waxaan ka qayb qaadanaa sportiga waxaan ka qayb qaadanaa waxyaabaha kasta dhalinyarada dhiirigelinaya maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa alaaba barbar istaaga dhalinyarada isagoona ku dhiirigeliya kubadaha iyo waxyaabaha la nooca sidoo kalena horumarinta dhalinyarada Axmed Faarax Kalson TV Hargeysa.